wasiirkii hindiga ahaa oo hadlay oo sheegay waqooyi bari Soomaaliya in ay maxaabiista u haysato madax furasho ka soo jeedo waqooyi galbeed Soomaaliya سعيد عبد الله دين لفركيس oo ku sugan maalmahan gobolka mudug waxa uu ka qabanayo jimcaale iyo isagu xageebay isla marayaan xaaladda guud ee Puntland iyo waayaa kharaan uu Sacid dhaminayo BSF lafirkeeda oo soo bandhigaysa muuqaalo midba midka kale ka falxun yahay wacadna ku maray inay qof kasta oo muuqaaladaasi CC camera ka soo hormuuqdo shalay haduu qoslayay bari dhoosha ka ooyo mas'uul kasta oo meesha tagayna oo hantidooda qaatayna إن الله يهرن الشعب الصومالي الله تصو شلي هديها هوية الوعي جري هوية كويسة عشان كالصومالي بالقيستي ما أنت بنتلان بالقضية حكتها واحد نورمالة عادية والدولة النماء وكال يعرقها وكود الاستاقية من حوينها جمهورية فضل على الصومالي مدير حسن الشيخ محمود وبالمها كسو وجهان هيرشبال قل مذوق إلا سفر قال كعيئة من حوينه كوي مالية رئيس وزراء حمزة عبد البر oo shacabka Soomaaliyeed tusay in laga xoroobay beesha caalamka markuu yiri waxbana looma yeerin karo waxbana loo sheegi maayo waa dhamaaday waqtigiina la cabsi gelin jiray oo la leeyahay hadda beesha caalamka asilayso kursiga waa laga qaaday hadda 4 sano ninka lagu hayaa kursigu ka tagaya 100 xildhibaan hambal ya caaw waxa uu diray ninkii ahaa madaxa ay furan iyo beesha raxweyn qodobadaas oo dhan muuqaalkan kugu durisay waxaan ku horeynayaa gobolka bari heshiiskii hadda saacad gudeed ku saxiixay markuu ciidamadii meesha ku daabulay shaqeyn waayeen ismada gobolka bari oo halkan uga mahad celinayo shacabka gobolka bari oo beelaha Ali Saleebaan iyo Ismaaciil Saleebaan iyo Waar Saleebaan ka soo jeedaan oo isbahaysi ciidan sameystay oo mulaaxan xaqi ay ku lahaayeen xuquuqda ay ku lahaayeen markii ay hor dhigeenna oo heshiiskii qodobada ku duugay wuxuu saxiixay hubkaasi inuu yahay hub beeleed oo ay xor u yihiin meesha doonaan ku mari karaan ciday doonaan u adeegsan karaan cidii soo weerartay isaga celin karaan wuxuu saxiixay ciidankaas database-ka Puntland inay marinayaan wuxuu saxiixay mishaarka bil kasta in ciidankaas dekada Boosaaso dhaqaalaha ka soo baxa inay mishaarkeedu ku leeyihiin haday waayaan Soomaha gaari Boosaaso ka soo baxaya oo garawa galaya oo gaalkacyo aadaya ma jiro qardha aadaya intaas oo dhan gaaja loogu baqtinaya qodobadaas oo dhan bay hor dhigeen wuxuu ciidamo daabulo isa soo dhiiba oo Maxamuud Saleebaan hubka siiyo waxaan Maxamuud Saleebaan hub dhiibana ma jiraan midna adoo Maxamuud Saleebaan hadda beeshaadi bahad dhulbaan toobaynaya markaas hubka anagu dhaqaalaha ay ka gadanay adoo dhaqaalihii dawladda reerkaaga ku hubeynaya ba waxa artaan hubka aan jeebkayaga iyo daabka dumarkayga aan ku gadanay inaan ku siino naagaha aan qabnana waa kugu dareynaa baa leeyahay ismadii gobolka bari si adag bay ula hadleen ciidankan oo isdifaacayaan baa leeyahay wallahi ninka gaajada u dhimanaya baa leeyahay waa adiga markuu arkay inay nimankan isku mowqif yihiin oo sir kala shaxaad oo kala leef oo mid baa ku siinaya dheh ka wixii waa nakta dhabarka inta saarsan baa waxa la yiri 3 dibi oo maalmo mid Maxamuud Saleebaan qaran lahaayeen noqon waxaan caawa halka ka cadeynaya inuu gobolka bari ku soo fashilmay gobolka bari kaliya kuma fashilin gobolka mudugna ku fashilmay markay nimanka leelkase xaafadooda isku ballaariyeen orodku orday ilaa ugaaskoodii buu tagay ugaaskoodii baa ku hagoogtay ugaas caamid baa leeyahay ugaas tanada lama simna Maxamuud Saleebaan iyo majeerteen iyo harti iyo tanada wuxuu sameeyaa kablaalax wuxuu sameeyaa reerkaas maalintii lagu caleemo saarayay jeebkooda waxay ka bixiyeen 4 milyan oo dollar bay ka bixiyeen shalay maalintii saxquran iyo meegaagta iyo jicboor xabada ka socotayna waxa lagu lahaa adaa hawiye ka gardaran dadkan intaas oo dhan meel bay ugu qoran tahay shalay baa shaati dawladeed farool ku weeraray waxa sawa ka qaadi waayay سعيد عبد الله دني ماشي عبد البانت وكتري بوتلان البانت ما تشوجو حوار البانت السوق لو قرطنا مرض ما شقين السوق أصابت محمود صليان دتك أو قرصيار هو هيستوي لا الكاس القدومية برلمان كادو سنين كان سنين أما مدحوين كحيين سنين سدح اللبان عيسى محمود أوتشي محمود صليان كمده بال الكاس كعدد يكحل اللبان نبضا ما واحد رجع قبل كبر تشوج أي ديدين إسماعيل سليمان حلية لبو وار سليمان حلية لبو أفر متى علي سليمان حلية سدح وقضبضة هذا سعيد عبد الله دني هورديان دستور كحد فرنا حل بانا صحبي كرمان هديك كوايان قضب كور أنا وحير تعليقي هلا هذا هديك كوايان حبط بكحيان يقبل كبري دم إنان بطلان محمود سليمان منا لقى مصروفين أو أيين قبل كبري قبل كترسن قبل استد أف صومالي إنه يجين مركا
ugaas waxaan ku leeyahay fariintaa kusoo dirayo anigu nin dhalinyaraha ugaaskiisa aad tahay baa ah meeshaana lex jeclo badan baa Puntland igaga jirta waa gurigeyga iyo hooygeyga weeye waa indhihii ummadda Soomaaliyeed weeye waa hooyadii federaalka weeye fadaray u gacan gashay ugaasow ninkan waa nahad ilaahay rasuulba ka furtay isaga reer bariga waa is yaqaanaan laakiin adiga ninkaan ku kasoomin ninkaan kugu meereysanaya ku imaanaya ciidamada isii ku leh ciidamadan leelkasa dahabkooda ka gadeen gabdhahooda gaday rasaastan hubkan waxaan oo dhan qayb baa ka ahayd ninkaan waa nahab dhalay wax walba oo heshiis kula galay cagta ugu saar inaa heshiiskaas hirgalo leelkasana inuu u sheeg isagoo ma fahansanaba leelkasa reerka oo u dhigmo isaga iska dhaaf maxamuud salmaan dhan ma fahansaneenba leelkas wuxuu u dhigmaa kablalax iyo tanade baasiman markaasuu maanta 3 xildhibaan kaliya Puntland ku haystaa waa cadaalad darrada iyo falxumada iyo anshaxumada iyo falxumada Puntland ka jirta wey inaan dastuurka la ilaalin reer ftooda la ilaaliyo wey marka ugaas nin kulli adag ba kugu ogaa xilkaana reer ba ku dhigtay reer baana madaxweyne u tahay sida dani maxamuud salmaan madaxweyne ugu yahay ugaas reerkaaga wixii ka maqan u doon ninka reerkiisa iyo tolkii waa wataan tolka waa ku wataan laakiin wixii tolka ka maqan ha ka hakran waxaan dul istaagay jimcaalo oo imaanay hindi waxa hadlay waqooyi bari Soomaaliya waxay madax furashada u haysataa waa waxde waxaas nacas ku dhalay mulaaxa u soo dhiibay isaga waxba dhihi maaye laakiin waa niman 500 iyo 73 nin dilay wey 501 nin dhulbahantay ahaayeen 72 nin hartiga kale ahaayeen rag laayay oo kibir ku laayay oo guryahooda ugu yimi oo aniga sharci ahaanteeda Yacquub Siyaad ahaanteeda dil toogashaba ahaa dhankayga dhanka firdhiye iyo xukuumaddaasna ay ku wadaan dil toogashada ku fuliyaan buu ku leeyahay dhaqaalaha ka sameeyay ma dhaqaalaha dhow baa sheegaysaa ma waxa sheegaysaa inaan ilaalino oo nadaafadooda ilaalino oo macallimiin quraan loo saaro oo annaga waqti kharash naga galo oo wali gobonimo annaga raadinayno waxaas waqooyi galbeed haddaad ku qancinaysaa aday ku taala laakiin nimankan waa gacan ku dhiglayaal weeye madax furasho iska dhaafay waxaa loo haystaa raggii ay laayeen baa loo haystaa inay gacantooda hadda kusoo nooleeyaan taa ma karayaan soo maaha waxa ay ku dileen iyagaa sheegaya in iyagana tirka la geeyo waa ballan weeye oo aan looga turin adiguna hindiyow iyo mulaaxow weligaa saa isaaq kabaqaad ugu ah shalayna hawiyaa kabaqaad u ahayd maantana isaaq baa kabaqaad u tahay adaa dadka maalin hawiya ku caaya maanta isaaq wadatana waa fiican yihiin maalinta hawiya sida gondhabka u isticmaalaan hawiyaa xun maalinta isaaq sida gondhabka kusoo tuuraan isaaqa xun weligeed bay Puntland 28 sano intaa u dhaxaysa hawiyaa fiican isaaq waa fiican hawiyaa fiican isaaq waa fiican 17 xildhibaan baa dhulbaanta ku leeyahay mid ka dhiidhiyay kelmadaas oo dhaawariya anaga warkaan uga matashid wasiir kaalay halkan ima waxa ka wada sheeg ma jirto sababtoo ah waa nin jika maxamuud salmaan ka shaqeeyay wey waa nin alkulista iyo suuqa laga soo qortay wey waa nin haddii la dhaho naagtaada keen aan keenin ninka walaalkiisa oo gardare lagu dilay ka dhiidhiyi waaye haddaa caawa ku tiraa kaa naagtaada ii keen awasay ma diidaya marka 17 meeshaan jooga uma yeeri karaa ninkan hindiga ah oo ku haya raggan waxa loo haystaa madax furasha loo haystaa soo ayaan dar afka waqooyi bari Soomaaliya ana ku hadlaya raggaasi kharaarka waa dhadhaminaya cadaalad darrada iyo dulmiga waa dhadhaminaya darrada dadka la soo aadayna waa dhadhaminaya waqooyi bari Soomaaliya masiirkeeda iyo dawladda iyada oo tashanaysa adaa soo haray Soomaa adiguna sheeg waxa sheegaysid waqooyi bari Soomaaliya ku leedahay hooyada anaga wasna asakay u gudbaya waxaan dul istaagay jimcaale horta wixii hore oo dhan hadda gobolka bari inuu heshiis ka dhacay oo odayaal soo fariisteen oo saasoo kale hub isku aruursaday gobolka miduguna saasoo kale in hub isku gurtay oo la soo fariistay kulliga marxanti baa ka tiyay aniga ninka rabay inaan garow gubo hadduu xasan sheekh yahay iyo hadduu nin kale yahayba horta waraale ahaanaysa garow anaa iska leh waana deegaankayga mulaaxana oo walax jecla badna anu odayaal ma dirsan shalay mulaaxa guddi odayaal oo faroole ku jiro oo aan tala ciise maxamed waxba ka dhex goyn dirsaday horta tii waa aqbalnay annaga sida mulaaxa kale in yawiyo uqdad baa qabaayo maxaa idin ka maqan baa leeyahay annaga ciidan waxaan waa ciidan taliyooduna waa Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland weeye mulaaxo
ninkan ciidankan 3 sano xuquuq uga maqanta dagaalkii ay boosaas ku soo galeen iyo dagaaladii isaga dartii u galeen intaas oo burbur iyo khasaare ba soo gaaray ciidankan hantidaasa burburtay isaga soo weydiiyay hadaa been ka sheegayno intaas mana dhaxmartay waana dhaxmartay okay intaad wax ka qabanayay anagu heshiis ba ogolna hadii kale Soomaa anagu ismada gobolka Nugaal ba shalay ba amar bixiyay xirada qof ka soo bixi kara ma jirto iyaga laga rabaa ninka xiradan soo weerara wixii anagu ka yeelnay markaan dadka deegaanka adigu ninkii wixii loo fariistaba waa uu ogolaaday in heshiiskii dhab uu saxiixo hadda markuu xoogaa ka soo adkaaday halkaas BSFT gaaday oo waliba gobolka Mudug ku gaaday ba la soo buusgareeyay oo la yiri ciise xooda ka baqaysa saasayelisa ciise maxamuud oo kaasa ubkoodi waa haystaan warubkan waa u beelood isna waa ogyahay hadda hal qodob ba la isku mari laayay waa qodobka jimcaale bedela annagu waxa leenahay jimcaale ma bedelayno jimcaale iyo ciidamadaba la wareeg marka ummadda waxa rabaa inaad tuso aniga horta tayada tagaysa dantiisa tagi mayso hubkaana shalay anaa gatay ninka ay rabeen aan Puntland xabad kurida ama garow xabad kuridana xabada waaridaya warkayga hadda dhageyso waxaan ridayaa maalintan aniga Saciid Cabdullaahi dan isku mid noqona xabada ridaya maalintaas anaa doonanaya in xabada rido laakiin hadda waqti ma tahay haddii ciidan lay dul keeno dambe haddii mar dambe qoriyas dambe igu bilaamo haddii halkaas dhibaato ka dhacdo afka dadkaas iyo deegaanka anaa ku hadlay mas'uuliyadda Saciid Cabdullaahi dan baa qaadaya weel kasta oo gobolka waliba inta idin sheegaya gud maalintu ninkan nabadda ogolaad waxa weeye maalintii gud ciise maxamed magacaabeen guddiga 33 waa 33 waqooyi bari Soomaaliya waqooyi bari Soomaaliya lagu dhisay wey 33daas maalintii la magacaabeen waa daawanayseen jimcaalo geel loo geenay markaanti markaa nabadoonada iyo gabdhaha iyo haldoorka ciise maxamuud oo xerada geel geenay waa daawanay Soomaa geelaas iyo ka badan hadda la keen doonaa laakiin hadduu xerada soo aadana raggaas waa isdifaacayaan hadduu isagu heshiiska oo dalbaday oo isagu qalinka ku duwanayna annagu walaalo macaano gool gurigayaan joognay xaafadan annaga askale haday duntana dhibaatada anayna soo gaarisa hadduu leeyahay dadkan dhibaateena shalay anaa dhistay maantana dhibaatada ogolaa warkaas war uu laalaab ku jira miya ma war isdaba marsanba isaga nabadda dalbaday isaga nabadda laga rabo aniga nabadda lagama rabo nabadda iyo colaadaba aniga gacanteeda ka baxday nabadda iyo colaadaba gacan ba aniga iguma jirtaba isaga gacantiisa ku jirta isaga la rabaa tuu qaadan lahaa tuu qaatana anigu la qaatay hadduu colaad qaatana colaad baan la qaatay hadduu nabad qaatana nabad baan la qaatay haddii kalena awal ba anaa Nugaal iska lahaa isaga ka baxay oo fudud oo wallaahi ah iyo kuwa uu dabada ku wato iyo kuwa uu leeyahay hataa ciise maxamed baa kursiga dhaafinaya oo idinkaga tagaya adduunka waxyaabaha raqiiska la soo sheekayo si ciyaalka xataa wada nin aan muuqaal laga hayn oo ciyaal la sheekaystay ba wax laga dhigay buubuni war wuxuu yiri hebel ma dhisaya ninkan inuu soo abaal lahayn kuwa macaaw gobolka bari isku haystaan soo kuwii shalay barsan lahaa Soomaa annaga maanta xabadii suuqa ay jirto Saciid Cabdullaahi dan isagoo xaar ka wareeyay nimankii bahdir uga hiiliyay soo annaga ma ninkii islaamkiisa iyo ismadiisa u maagay aniga ma ahayn xasan shiraab gal ninkii ka xisbiga ka ku hayso ma ahayn wareed ninka waa baran doontaan laakiin rag qawaamirta ah oo ciise maxamuud ay banaanka taagan guula salax baraabiis isagoo dhaktara buu intuu qori qaato SDF gal halkaas ku dhintay xasan shiraab gal aabiis isagoo taangiga hadda ay saabuun dhahaan oo shalay markay ka carareen jimcaalo waysan dhahaan ma noo soo celiso markaan ka cararnay waxay u barteen shalay xasan shiraab gal aabiis baa ku dhintay mar isagoo furanaya gaal ka ay ku dhintay ragga maanta wada taagan waa rag dalkan iyagoo agoono aabayaasho u dhinteen dan aabiis nooma dhimaan waxa lagu dilay Saciid Cabdullaahi dan aabi waxa lagu dilay Kismaayo lagu dilay soo cararaya dhabarka xabad laga dhac laakiin raggan iyagoo dadka ay deegaanka difaacaya aabayaasho u dhinteen rag marka akhlaaq xumo la soo aadi kara ma wayna rabaa inay xabadu bilaabato laakiin wax walba nabadda ka wanaagsan isaga shalay nabadda raadinay nabadda ku ekaado BSF waxay ballan qaaday qof kasta oo mas'uul ah oo xerada galay oo biliqadii loo ka tageystay inuusan nabad qab kaga bixin meeshaas Puntland in la ceebayo hadhowna talaabo rasmi ka qaadaan qofkii kale oo isagana iska caadi ah oo xerada tagay oo CC camera ka soo dhex muuqdana waa ballan inuu isagana ooyo hadda muuqaalada dhan bay mid u soo faqayaan wii kasta hal muuqaal oo mid basuula oo kastumayaal guranaya oo balaayo guranaya dadkan ina cawaan iyo dowladnimo waxba ka aqoon ku cadeena marka wiyaha meegal la qaaday maxaa la dhahaa 1990kii xafaayada bil qaysateen kastumayaasha furateen dumar baa ku fasateen bariis baa xadeen baastar xadeen hawiyo
wixii xerada ka dhacayay baastay bariis la xadaya ma ahayn wixii ceebti loo kitaalka ka dhacday waa ujeedeen war mas-uuliyiintii gobolka duqi magaalada guddoomiyihii oo baasta guranaya boorsooyin guranaya kastuumayaal guranaya laakiin waxaan BSF ku amaanaya iyo saraakiisha wiilasha almadiyaan ku amaanaya wiilasha bahdir waxaan ku amaanaya inay xaq feeru ka dilaacay ciidankaasi ciidan sharaf leh oo sariir ku seexda oo aan bacad hurdin oo kaalay araga oo mukayf u daaran yahay oo sharaf leh oo qiimo leh inay ahaayeen waa waxay san kala taagi jireen ilaa rag saraakiila oo soo carbaxas dhigi jiray ciidankan kibir badan horta ciyaalkan kibir badan horta show waa niman adduunyo ku jiray ahaayeen oo cid ka naxayaan jirina wax walba buudsa wala tumanay ahaayeen dhammaan BSF waxa la waa jiraysa waana jiri doontaa nin xuno maskiina oo isaga midgaan oo bahdul baantaana talis u baabi'in kara maaha iyo intii ka xoog weyn ba imaanaya waxaan ku dul istaagaya xashir maxamuud oo safar gaalkacyo ku imaanaya galgaduud ku tagaya ilaa Hirshabeel soconaya safarkaas waxaa looga goleeyaa in la tuso caalamka iyo dunida in ciidamada Soomaaliya looga maarmayo ciidankan sankadhuudhiga Afrikaanta madowga ah ciidanka Itoobiya baxay koo baroonay maartay hadda al-shabaab wadanka qabsanaya laa ilaaha shabaab baa hadda wadanka qabsanaya kuwa oo Soomaaliya adiga ilaahay ma ku tusay waxa ma ninkii dhamaaya African com hogaaminayay baa wuxuu sheegay ciidamada kaliya oo la dagaalami kara shabaab inay yihiin ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed markaas waxa arkaysaa علشان هوية كحمة وحن معه وروحان واحد سنتي قدرت كجليوي صوته أنا مرة نود ضمير كي يمصينا يو يعني ويل سوماليات يا الشباب لا ترسل سكستو أول الصوماليات سكوهن حد يدقال كودن بيداعش تا السعودية بالله كسعودية وملاح ولا قاعد كهذا ما نكسته فما أنا قارك كدعي سأنا عيدك بالله أنية جميل ما أنت عيدك بالله عبادستاننا بل ما دام أيين بيش عبادستان شيء مركو meerada iska dhex waayay wixii uu xukuumay 10 sano laakiin waxa ayaan daraa qof dhan oo muwaadin Soomaaliyeed sheeganaya ba Itoobiya u ooyay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre mid buu ka dhawaajiyay wuxuu yiri waa dhamaatay waqtigii beesha caalamka loo qoor salaaxi jiray wax noo yeerin jirtay na maamuli jirtay talada qaadan jirnay taayada tagaysa tooda waa maxay shabaab oo la diriro Soomaaliya ciidanka xoogga dalka oo la dhiso oo ilaa 500 kun la gaarsiiyo wiil kasto askari qoran kara oo Soomaaliya oo askari ha qorto wiil kasto oo xiriya iska xaadirin kara iska xaadiriyo haday boolis tahay haday military tahay haday nabad tahay haday iishag asluubta tahay haday iishag ciidanka badda tahay dhammaan ciidanka Soomaaliya waa la qalabeynaya waana la dhisaya xukuumadda soo hartay kii aaminsan inay tagayso ma tagayso waa joogaysaa xukuumaddan wallahi waa joogaysaa xeerka qaban waay Saciid Cabdullaahi Dani oo beeshiisu ay dabada ku wadato sharciga qaban waay Axmed Madoobe oo fadhiyo meesha la dhoo Kismaayo oo wiilka wacays la qabanaya xagee uu ka shaqeeya aniga ii sheeg alshan wacays le hawiyo ugu aqli badna baa waxa ku tuumaysa aqli xumo Soomaa ama hawiyo dhan baa waxa ku tuumaysa karti xumo ku tuumaysa siyaad baraacina doorma wadanka ku ilaa tasra fadhiyi jiray marxaata Allah ka ahayd maanta kuwa jecel oo ooya oo u barorta waa ninkan uu kalifeenan qurba joogno bila system noqono bila nidaam noqono dal system la wareegay dal bila system ana ka tagay kuwa ku leeyahay ahliyay xasan sheekh maxamuud oo inta uu khalday siyaad barar saxayana waxa lagu leeyahay waa nin dhintay waa nin qurmay ni wax ku dhex jiraan maaha waa tuug waka ra'iisul wasaaruhu arrinka uu ka dhawaashay ku maasan ciidamada waxa la yahay dhulka Muqdisho askariyow cidii isku dayda inay xoog ku sii deganaato حتى قري مواد اللي هي لا يكعنيه سلامته من هيك توجن وأمر دولة إن فريس بلوي حدين لو قدره مال الشباب يقرح يلقوا سميني شاي أو لو دول كاسي خطر أمن حنا كسر صوته عسكريو هذا واجب كجدون ويده هو يا حكا قسن أبا حكا قسن نبض دودا مسؤولية كاس عرنتها سي نور قرح بدن يشرف كون ولا على الحياة على الكوضة سياسي حنا باشا عالم كيو يبرق يو وحاس وحبا كاما قصيان سكيلو صح أما ردو صبحه باقي وفلون تلا لا يرى ما مدحدا الصوماليات waxa ay tamayaan iska ay tamaan waxa halka wadiraya hambaliyo gudoomiye cusub ee yeelatay baarlamaanka ee 5 sano ee soo socota hogaamin doona waa wasiirka hore dekadaha mudana madaxa ay furan
kuwa badan maxaa sida loo doortay ma arkaysay alla sida la yeelay ma arkaysay waaba ku qanacsan tahay kursiga inuu raxween leeyahay sida loo doortay maxaa ka qusay alla Soomaalida munaafiqsan Soomaali isaga farmaajo markuu keenay qorqor farmaajo markuu keenay lafta gareen farmaajo markuu keenay cali gudlaa wadani siyaad faabi farmaajo balaha حشي محمود تلابك كستو قاضو وادب صعد وادلكو بربري ودورشة عن حلال عين ودورشة حتى مدي قلب ذوق بالقوم روسية فحلال معها وحلقوم روسية حلال معها واحد كستو من أحد الصومالي إذا قوتها وحلالوي أنا كنت هيرنا وحي كلام معارضنا يجا ووايه أتكامرة يقاسي إذا نقطة بس ويلقى على ينبليو حاسس الشيخ محمود نين رجع كلا يقانا ويه نين رجع كودنا يستمعها نين أقوي نينك جيسي نينك كان ninkaasi qaabka u soo xulayna qaabka ninkaas wali inuu geesiyaa kuwii lafta gareen la socday oo hore xildhibaanada uga tirsanaa waa soo leexsay waa nin reerkiisa beeshiisa wata marka kursiga raxween inay leedahay ku taageeraysa qaabka loo dooratayna waa diidaysa aqligaas hadii raxween ka aqbasho iyadaaba ka gardaran ee ku leedahay adaa was bay ku leedahay iyo ay ka dhalay was bay ku leedahay team madaxa ifran wax kale kuma leh ay ka dhalay was bay ku leeyihiin hambali alle gudoomiye shaqada qabso sharci kasta oo danta Soomaaliyeedna ina meel marisid baan kugu ogaa adoo aan cidna kala tashan inna ku raali galin qalinka adoo saa ugu duugay sakartile barnaamijkan barnaamij ayaan kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi